السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay. haddaba barnaamijkan waa kii ugu horeeyay maanta Jimco aan idin soo gudbinayno waa barnaamijkeeni koobaad Jimco Mubaarak. taariikhdu waa 22 bisha Agoosto sanadka 2026. barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee xaaladda guud ee bariga dhexe wixii ka soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnay. haddaba markabkii Mareykanka Abraham Lincoln ayaa isaga baxay bariga dhexe 250 maalmood oo uu silac iyo dhibaato ku jiray oo xataa askartii saarneed ay isku dayeen in ay isdilaan. haddaba xaaladda guud ee xaaladda maraakiibta Mareykanka ee diyaaradaha xambaara ee kuwii ugu fiicnaa caalamka ah iyo dhibaatada ay u geysatay Iiraan oo warbixin laga diyaariyay ayaan idin hayaa. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Pentagonka ayaa mar kale wax ka bedeshay xisaabtii la isku ogaa inta dhimatay inta dhaawacantay askartii Mareykanka tan iyo intii dagaalka Iiraan uu socday. haddaba maxaa keenay in isbedel lagu sameeyo tirada? haddaba warbixin iyana arintaa laga qoray waan idin hayaa iyo waliba Israa'iil oo weeraro culus ka bilowday xalay ilaa maantay koonfurta Lubnaan iyadoo laga baqayo saacadaha soo socda Iiraan iyana inay ka jawaabto arintaas. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa. waa barnaamijkeenii koobaad maanta oo Jimco aan idin soo gudbinayo. inta aan ku jirnana wixii kaloo akhbaara ee soo kordha waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay. waa barnaamijkeenii koobaad. maanta waa Jimco Mubaarak asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan. taariikhdu waa 22 bisha 8 2026. wararkii ugu waaweynaa ee xaaladda gobolka bariga dhexe ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahin doonaa. ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa markabka diyaaradaha xambaara ee la yiraahdo Abraham Lincoln ayaa la sheegay saacada ka hor inuu isaga cararay oo isaga tagay bariga dhexe oo uu dhibaato xoog leh kala kulmay. dhibaatada markabkaas laga qoray taariikhda markab laga qoray oo diyaaradaha xambaara ma jiro adduunka. askartii saarnayd waxay isku dayeen inay isdilaan. cunto la'aana dhacday. biyihii kuwa saqoobay. maxaa dhacay? cabsi laga qabo Iiraan darteed xataa dekad waa tagi waayay 200 maalmood in ka badan. badda saas u taagay. xagee aadee daroona inta ka imaanaysa gantaal wiifaaya baal socota doomo yaryaro iskood isu wada sida darooniskoo kale ah oo isqarxinaya. waa rafaaday. haddana dhibka ugu weyn markabkan oo askarta isu dili lahayd oo intaanu rafaad ay u galeen maxay markabkii Mareykanku ku dhaaranayay Gerald Ford alirada kan ugu weyn caalamka ee diyaarada dagaal xambaara ayay Iiraan nagta ka saartay. Iiraan markay kaas qarramsatay oo kii cararay dab ka kacay oo wadankiisii ku laabtay kana shaqadiisii qabaleen. kan marka kii ka weynaa la qarramsaday asagoo hurdama u taala askarta saaran ma hurda u taala kii kalaaba la qarramsaday goormeeleedii qarramsanaasay ugu jireen ayaa qaarkood way isku tuureen badda markaasaa lasoo badbaadiye lasoo qabto waa isdilaynaa yidhahdeen. waa tii eheladoodii ay mudaaharaadya ka sameeyeen gudaha Mareykanka ay yidhaahdeen dhibaata ka naga haysata wiilasheena nala soo celiyo. cunto fiican ma haystaan, wax ma haystaan, kan ma haystaan. waaya cunto fiican ma haystaan maxaa laga wadaa? cuntada sidii loogu geyn lahaa rafaad noqotay. waa la cabsanaya. markabkii asagoo meeshii soo maraa Soomaaliya gantaaladii ayaa yaala. nimanka Iiraan waxay ku dhigtay Mareykan kibirkiisii iyo rafaadkiisii say u jibisay waa la yaab. marka Mareykankii markabkii sidii loo qaylinayay markab Japan jooga badda Pacifica jooga ayaa la soo diray. George Washington alirada asagana diyaaradu xambaara waxa loogu talagalay inuu Shiinaha iyo jeegaxeerka iyo meesha waardiye ka qabto. kii waardiyaha la soo diray inta loo soo diray waxa loo soo diray halkaan
kan inuu bedelo rafaadka haysta oo askartiisu isdilayaan kan yaa bedelaan marka isagana hadhow mid kaloo George Bush leeyahay iyo alaab kalena way joogaan iyaguna waa rafaasay marka Iiraan gacala loo taagay adduunkii kala yaabamba oo indha ka soo hareen Mareykanka waxa ku haysta beeshaan haddaba marka wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray hadaan idin la wadaago telefishinka Al Jazeera ayaa warbixin cajiiba ka diyaariyay maanta sheekadan wuxuu leeyahay isku dayo inay isdilaan askarta iyo cuntadii oo ka yaraatay haddaba sababta uu u baxay Abraham Lincoln maxay tahay oo uu uga tagay bariga dhexe oo uga shiraacday macnaha maanta uu ka baxay haddaba isku dayga ismiidaaminta iyo cunto yaraanta maxaa sababay markabka USS Abraham Lincoln oo markaasi isagu hadda isaga soo cararay bariga dhexe markabkan diyaaradaha xambaara ee Mareykanka ayaa ugu dambeyntii ka baxay bariga dhexe kadib dood kulul oo maalmihii la soo dhaafay si xoogaysanayay haddaba markabkan ayaa lagu bedelayaa markab kale oo markaasi lagu magacaabo USS George Washington kaasoo imaatinkiisa gobolka ay ku dhawaaqeen ciidamada Mareykanka maalintii Khamiista ayay sheegeen shalay ahayd inuu soo gaaray gobolka haddaba Mareykanka muranka ku saabsan markabkan baxaya ayaa sii xoogaystay kadib markii sharci dejiyeyaasha Mareykanka ee baarlamaanka xubnaha ka ah dimuqraadiga Congress-ka Mareykanka ku jira ay shaaca ka qaadeen maalmo ka hor inuu markaasi ku qaatay badda gudaheeda 250 maalmood markabkaas taasoo taariikhda dhicin waxa kale oo sheegeen in markabkan 200 in ka badan maalmood aanu wax dekada arkin oo uusan tagin badda uu dhex taagnaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo cadaadis saaran awgeed ayaa ku dhawaaqay in markabka dagaalka ee Abraham Lincoln laga soo saaro bariga dhexe si cadaadisku uga yaraado iyadoo lagu bedelayo USS George Washington markabka leeyahay haddaba si kastaba ahaatee talaabada markabka dagaalka ee Mareykanka ee USS George Washington waxay u muuqataa inay markaa culayska ka yareyn doonto madaxweynaha Mareykanka haddii markabka la soo bedelo haddaba bishii November ee la soo dhaafay sanadkii hore 22keedii markabkan dagaalka ee USS Abraham Lincoln ayaa ka ambabaxay dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada la yiraahdo San Diego ee gobolka California isagoo uu ambabaxay badda koonfurta Shiinaha kadibna waxaa loo bedelay inuu markaa tago bariga dhexe ka hor dagaalka inta aanu bilaaban 28 Febraayo ee sanadka 2026 markii uu gaaray gobolka markabka dagaalka ee diyaaradaha wuxuu ku biiray markabka kale ee weynaa ee adduunka ugu weyn diyaaradaha xambaara ee Gerald R. Ford kaasoo markaasi la sheegay in markii uu dhibaato soo gaartay oo uu dab ka kacay in markaa laga soo saaray halkaas haddaba shaqada markabkan ayaa isku sii waday ayaa leeyahay taas ayaa keentay muddo dheer inay ku sugnaadaan ciidamada saaran markabkaasi badda gudaheeda marka halka marka rafaad weyna ka muuqda waxa uu shalay u lahaa ninka la yiraahdo Trump dagaal dambe oo xabada nimanka lama aadayo dhaqaalaha kaliya ka weeraraya oo cunaqabatayna iyo waxaas aan kula dagaalaya u lahaa hadda meesha waxa jira xisaabtaana jirta Iiraan day ugu soo bood ma marka niyad jabka maxaa u keenay maraakiibta dagaalka ee Mareykanka leeyahay marka nin khabiir ah oo la wareysanayo wuxuu leeyahay niyad jabka Mareykanka askartiisa badda ku yimid wuxuu yahay markabkii ay isku haleynayeen ee adduunka midka ugu weyn ee diyaaradaha xambaara ee gantaala ku rakiban yihiin ee isdifaaci kara ee dhinacyada maraakiib kala ka socdaan oo la leeyahay gantaal kasto lagu soo rido intuusan ba isagu soo gaarin ayaa la qaramsanaya gantaalaha ku rakiban laser ku shaqeeya nuclear buu ku shaqeeya kan kiya Iiraan qaramsatay markaas hadda niyad jabku yimid lagu leeyahay kii uu ka carar bariga dhexe
ilaa uu fariin ku qabtay Greega dekad ku taalo fariin ku qabtay nimankii Greega meesha in lagu sameeyo la rabay waxay yiraahdeen de ninka ma sameey karno markabkaan waa cararahdana Mareykankii oo kala ay kii weyna oo dadka lagu waabsan jiray oo Shiinahan loogu goodin jiray iyo Ruushka iyo iska jira markabkaana haysanaa la lahaa hadayba Iiraan qarramsatay maxaa yaala kuwan kale waa awlaadiisii waay kuwan kale waa maraakiib yaryar oo macnaha kaas marka loo fiiriyo kuwan de waa ka yaryihiin hadda midkan hadda baxay cararay iyo midka hadda la soo diray waxa soo dhan kii ka weynaa la qarramsaday marka sheekadaasu halkaas ay maraysaa xaajadu marka halkaas ay joogtaa saakay markabkiina waa baxsaday marka hadda waa caray ilaahu mar naga saaray ka joogto ma hadda waa ka baxay kii kale oo laga keenay Jiina meeshii shaqada qabanayna asaguna de ilaa intuu joogi doonaa marka taasaa la isweydiinaya meesha nagu soo bood ma way sheekada kale oo la yaab kale maanta Jimcaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagon liis cusub ee soo saartay awal askartii naga dhimatay intaanay ahayd kuwii naga dhaawacmay intaanay ahayn soo madhin hadda liiskii konton cusub ay ku soo dareen konton askari oo markii horeba aan lagu darinaa lagu daray Iiraan marka maxay leedahay soo annaga idin ma sheegin waxaan xisaabta ay gudbinayaan wax ka jira male maalin walba xisaab cusub ay ku soo darayaan marka hadda maxaa keenay in lagu dhawaaqo dagaal ma socdo hadda xabad ma joogto la isku haya dagaalka intuu socday wixii ay qariyeen hadda maalin walba qayb ku soo darayaan la leeyahay hadda marka aan idin tuso wararkii ugu dambeysay ee hadda la soo saareen jirada la yiraahdo ra'yul yawm waxay leedahay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Pentagon ayaa saacada ka hor waxay shaaciyeen askarta kaga dhaawacantay dagaalka Iiraan inay gaarayaan 757 askari oo markaasi Mareykanka waxaana la sheegay in 18 kalena ay kaga dhinteen dagaalkaas waxyaabaha la yaab kale ee wargeysku uu sheegay waxa kamid ah konton askari oo dhaawacmay ayay 24 saac ee la soo dhaafay soo saareen Mareykanka xisaabtii hore konton ku soo kordhiyeen marka waxa la weydiiyay 24 saac ee la soo dhaafay dagaalba ma dhicin kontonkan intee ku dhaawacmeen waxyaabaha la yaab kale waa bogtahay xisaabtii hore waa isla ogeynayaan media 50 kan intuu ka socdaa marka 50 kan xisaabtii hore alla iloobay meel ku jirtay Iiraan marka waxa leedahay annaga meedii sheegino war kuwa waxay leedahay annaga waa qarrabsanayna saldhigyadoodii macna ayaga meesha ku xunnay maalin walba xisaab gooriga keenayaan marka hadda waxa dhan oo liiska loo soo saaraa mar labaad konton kan in lagu soo dhaxdaraa awala wariyaashu wareersanaa waxay leeyahay way hadda Pentagon liis dhaawac iyo dhimasho u soo saaraa mar hore xisaabtaas way xireen intaas asaas naga noqotay dagaalkiina hadda wax jugti la iska gelinaaba male maxay tahay liiskan ilaa konton kana la rabaa in la soo raacsiyo alaabti biyo raaciska way moogta roob markuu daali raxmar roobku markuu doo dadka dariska alaabti qashinkay raaciyaan biyaha soo raacinayaan marka hadda maadaama baxaysadu degataay liiska mar kale lagu soo celinaa kontona la soo raacinaa marka sheekadaas ay keeneen marka xaalku marka halkaas uu baraya saakay wararkaas ayaa ugu waaweynaa wixii soo kordhay